halkan oo ah saxaraha Masar waxaa ka socda dhismaha ugu dheer dunida oo ay dhisayaan injineero u dhashay Shiinaha. Dabaqa ugu dheer caalamka oo ka kooban 165 dabaq kaasoo ciidda afka u dari doona Burj Khalifa Dubai, Twin Tower-ka Mareykanka iyo Eiffel Tower-ka Paris. Waxa uu dhismahan bilow u yahay magaalo cusub oo laga hirgelin doono saxarahan. Dowladda Masar ayaa lacag dhan 58 bilyan ku qarash garaysay si halkan ay uga dhisaan caasimad cusub oo ay u soo guuri doonto. Haddaba maxay uga guuraysaa Qaahira? Sidee ayayse u guuraysaa? Warbixintan ayaan ku eegi doonaa sidoo kale masjidka ugu weyn qaaradda Afrika oo halkan laga hirgelin doono. Egypt waxaan ka hadlaynaa dhulka ugu qadiimsan dunida ee taariikhda dunidu ay ka soo unkato. waxaa ku nool dad gaaraya 111 milyan oo qof kuwaasoo u badan muslimiin. inta badan dalkan waa saxaro lama degaan ah, waxaase dadka intiisa badan ay ku soo urureen dhulka ku teedsan webiga Niil, maadaama dhulka intiisa kale uu yahay dhul qalalan oo aan lagu noolaan karin. Dowladda Masar waxay bilowday qorshihii ugu weynaa abid oo looga faa'iideysanayo saxaraha lama degaanka ah. waxay ku dhawaaqday in dowladdu ay ka guurayso caasimadda Qaahira oo ay u guurayso caasimad cusub oo hadda la dhisayo. meel 45 kiiloomitir u jirta caasimaddii hore ee Qaahira ayaa laga bilaabay qorshooyin dhismo oo waaweyn kuwaasoo taariikhda dunida wax ka beddelaya. dhismooyinka loo yaqaan skyscraper oo ah dabaqyada sare ayaa ka soconaya caasimadda cusub ee Masar ay u guuri doonto. ilaa 6 milyan oo qof ayaa loogu talagalay inay ku noolaadaan, waxaana ay ka mid noqon doontaa caasimadaha ugu quruxda badan dunida. halkan oo ah waqooyiga caasimadda cusub waxay noqon doontaa goobta looga arrimiyo dalkan oo dhan. waxaa ka socda dhismaha qasriga madaxweynaha Masar, waxa loo yaqaan Presidential Palace ama aqalka madaxweynaha. dhulka uu ku fadhiyin doono aqalkan waxa uu ka badan yahay 50,000 oo mitir square ah, waxaana dhismaha madaxtooyada lagu qarash gareeyay $3 bilyan. aqalka madaxweynaha Masar loo dhisayo waxa uu 10 jeer ka weyn yahay aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka. bartamaha caasimadda cusub waxaa laga hirgelinayaa dhismahan oo lagu magacaabo Iconic Tower, kaasoo ka kooban 97 dabaq oo weli qabyo ah. dhismahan haddii uu dhammaado waxa uu noqon doonaa midka ugu dheer qaaradda Afrika. laakiin waxaa jira dhismo kale oo isla aagaasi ka socda kaasoo taariikh cusub ka dhigi doona dunida, waxaana la filayaa in sanadka 2030 daaha laga qaado. waxa uu noqon doonaa dhismaha ugu dheer dunida kaasoo afka ciidda u dari doona Burj Khalifa Dubai, Twin Tower-ka Mareykanka iyo Eiffel Tower-ka Paris.